ONLF ayaa maanta ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca xabad joojinta ayaa sida ku qoran bayaan ay jabhadda soo saartay dhaqangeli doonta maanta marka ay saacadu tahay 12:10 duhurnimo xilliga geeska Afrika. Bayaanka jabhadda ayaa lagu sheegay in iyada oo laga duulayo baaqi nabadeed oo soo jeediyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay qaateen in wada xaajo nabadeed lagu dhameeyo arrimaha ay tabanayaan si xal waara loo gaaro. Jabhadda ONLF ayaa dagaal ku hubeysan kula jirtay dawladda Itoobiya muddo ka badan 30 sano. Haddaba si aan wax badan uga ogaano xabad joojinta ayaa waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray afayeenka jabhadda ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge. Anaga ku dhawaaqnay waxayna ka bilaabmaysaa maanta duhurkii hadii la yiraahdo saacada geeska Afrika markay 12 ka tahay. Waxaan go'aansanay in marxaladan ay ku haboon tahay xabad joojin si dhacdooyinkii ka dhacay Ogaadeniya ee u dambeeyay ayna u sii soconin oo gobolka loo dejiyo dadkuna ay fursad u helaan inay danahooda iyo umurahooda si degan uga tashadaan. Dawladda Itoobiya arrintan si rasmi ah iyo si aan rasmi ahayn ba mas'uul soo qaadeen dhanka xabad joojinta. Wada hadal waan soo qaadnay dawladda Itoobiya iyo in xaaladda la dejiyo iyo in ururadii colaadda lagula jiray colaadii ay ka baxay dawladda Itoobiya iyada ku baaqday. Annaguna dhankanaga xabad joojin dhinaca baan maanta ku dhawaaqnay. Marka maadaama dawladda Itoobiya aysan sheegin wax xabad joojina idinku maxay ku kallifay inaad xabad joojinta ku dhawaaqdaan? inay dadka iyaga maslaxad u tahay maanta ayaan u aragnaa iyadu xabad joojin weyn ay ku dhawaaqday oo ah in ayna ururada inay xaq u dir yihiin in laga gardaraa in ayna argagixiso ahayn inayna colaad rasmi ah kula jirin sidaas ay caddaysay. Marka idinka xabad joojinta halka dhinaca maadaama aad ku dhawaaqdeen ma tihiin dad qaadi kara mas'uuliyadda xabad joojintaasi waxaan ognahay in qaar ka mid ah ay hubeysan yihiin oo ay wali durka ku jiraan. fulinta xabad joojintaasi mas'uuliyaddeeda ma qaadaysaan? Waan qaadayna anagu urur kala daadsan ma nihin waxaana la yiraahdaa si fiican baa loo garanayaa waxaan nahay marka hadal su'aal ka imanaysa maataas. waa gartay xabad joojinta waxaad kaga dhawaaqdeen dalkani Kenya maxaad u tagi weydeen gudaha dalka Itoobiya oo aad uga dhawaaqi weyseen? wali xafiisyada jabhaddu intooda badan dibadda ka howlgalaan kuwa gudaha ka howlgala Ogaadeniya ka howlgalaan kuwaasuna saxaafadda ma joogto xiriirka caalamiguna aad buu u hooseeyaa marka Nairobi waa xarunta saxaafadda iyo diblomaasiyadda adduunka sababtaas aan ugu dhawaaqnay Nairobi kaga dhawaaqno. Waxaa jirta sidoo kale in isbeddello ay ka socdaan gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka marka isbeddeladaasi diyaar mutiin inaad ka qayb qaadataan oo dadka dhex tagtaan? Anagu waxaan wada hadal run ku dhisan wada hadal daacadnimo ku dhisan wada hadal xaqiiqda waajahayaan diyaar u nahay oo dhibaatada annaga iyo Itoobiya naga dhaxaysa lagu xalliyo dadka iyagu halgan dheer bay ku soo jireen muddo dheer bay dagaalamayeen muddo dheer bay dulmi tirsanayaan marka waxaan diyaar u nahay in hab nabadgelyo lagu xalliyo oo miis dushii lagu xalliyo dhibaatooyinka aan tirsanayno oo ay ka talin ka mid tahay oo nabadgelyo ka mid tahay oo xuquuqo badan oo kale ka mid yihiin marka waxaan diyaar u nahay in laga wada hadlo xukuumaddan cusub baaqa nabadda soo saartay iyo shacbiga Soomaaliya Ogaadeniya inay ka wada hadlaan khilaafaadka u dhaxeeya. kaasi waxa uu ahaa afayeenka jabhadda ONLF Cabdiqaadir Xasan